waa barnaamijkii galabnimo maanta waa Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Janaayo sanadka 2026 qodobada barnaamijkan idinku hayna waxa kamid ah ciidamada Mareykanka ee ku hareeraysan Venezuela oo qabtay markab Ruushku leeyahay oo calanka Ruushku ka babanayo oo ah maraakiibta iyagu qaada shidaalka Ruushka oo halka u diray gujisyo ciidamada badda ah iyo ciidan maraakiib dagaal Mareykankana ugu baaqay inuu la macaamilo dadka uu qabtay isla markaana uu sii daayo Shiinaha oo isaguna maraakiib iyo gujisyo dagaal u diray dhinaca Venezuela si uu u badbaadsado maraakiibtiisa shidaalka ee iyaguna ku sugan Venezuela ninka la yiraahdo Trump oo war soo saaray oo markaa ugu baaqay madaxda wadamada ee wadanka Venezuela hadda ku sugan inay cayriyaan mas'uuliyiinta Ruushka Shiinaha iyo Iiraan ee halka ku sugan haddaba xiisadaas oo mar kale soo laba kaclaysay wararkii ugu dambeeyay ayaynu barnaamijka arika ku faahfaahinayna waxaa kale barnaamijkan idinku haya wali waxa la leeyahay hogaamiyihii Aydruus Az-Zubaydi ee kooxda STC gooni u goosadka dalka Yemen ee Imaaraat ku taageerayay meel uu jaan iyo cirib dhigay 3 meel ayaa lagu tuhmayaa haddaba sidee wuxuu jiraan wararkii ugu dambeeyay Yemen waan idin haya qaybta dambana waxaan idin hayaa Netanyahu oo mar kale ku celiyay walwalkiisa ah in Xuutiga laga yaabo weerar dhulka ah inay ka soo galaan xuduudaha Israa'iil haddaba sidee u dhici kartaa arikaas iyana barnaamijkan ku faahfaahinayna qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta oo Arbacada idinku soo gudbinaynaa inta qabtay markab calanka Ruushku ka babanayo oo kuwa qaada shidaalka ah meel ku dhow xeebaha Caribbean-ka isagoo markaa lagu tuhmayo in uu markaa xiriir la lahaa Venezuela Mareykanka uu sheegay in isagu u go'doonsan tahay haddaba markii sheekada ay dhacday ayaa Ruushku isaguna halka wuxuu amar ku bixiyay in loo diro maraakiibtiisii badaha daadsanaa ee gujisyada dagaalka ee nuclear-ka xambaara si ay markaa uga wardoonaan markabka Ruushka ee halka lagu qabsaday isla markiiba Ruushka wuxuu soo saaray war ku saabsan dadka aad qabatay ula macaamilan sida ugu fiican intaan kaaga imaanayn waana inaad sii daysaa ma sii haysan kartid dad Ruusha oo badda ku socda Mareykankana akhbaar wali lagama hayo oo aan ahayn in markabkaas uu xiriir la lahaa Venezuela cunaqabatayntii Mareykanka uu saarayna uu jabinayay sida lagu qabtay haddaba arrimahaas ayaa soo kordhay saacadihii ugu dambeeyay haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekooyinka laga qoray haddaan idin la wadaago waxa la leeyahay telefishinka Al-Arabiya wuxuu qorayaa haddaba warbixin uu soo saaray oo wuxuu ku leeyahay Washington waxay qabsatay markab kuwa shidaalka qaada ah oo watay calanka Ruushka Britain arinka way taageertay Moskana si xun ayay u cambaaraysay arinkaas haddaba dhanka kale warbixin kale oo ay qortay jirada la yiraahdo Ash-Sharqul Awsat waxay leedahay maamulka Trump wuxuu ka codsaday Venezuela inay cayriso jawaasiista u dhashay wadamada Ruushka Shiinaha Cuba iyo Iiraan dhanka kale Moscow iyo Pekin oo Shiinaha ah waxay u direen dhanka iyo Venezuela qaar ka mid ah maraakiibtooda kuwa dagaalka ah si ay u badbaadsadaan oo ay u ilaashadaan maraakiibtooda waaweyn ee qaada shidaalka oo Mareykanku handadaad uu ku hayo marka waa laba dhowr arrimood isku jira Shiinaha iyo Ruushku waxay halka u direen maraakiib Venezuela Shiinaha shidaal fara badan ka iibsan jiray marka Mareykankii wadadii u fariistay markab kasta galaya mid ka soo baxay ma jiro dhax nimankan marka awooda isbidaya Shiinaha iyo Ruushku maraakiibteena lama hadli kartid leey suuragal ma inaad wax ku sameeysid halka marka waxay u direen maraakiib dagaal u direen markabka Ruushka calankiisa watana Mareykanku way qabteen hadda inay sii daayeen in kale lama yaqaan laakiin Ruushka waru ka soo saaray uu leeyahay waa inay sii daysaa inta aad gacanta ku hayso dadka Ruushka ay markabka saaranna mucaamalaad midda ugu wanaagsan baad la macaamiloonaysaa mana haysan kartid markab ka diiwaan gashan Ruushka haddaba marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin Mareykanku ma sii haysan karo wuu soo daynayaa markabka Ruushka laakiin waxay arika uga dhigan tahay
inuu hanjabaad tuso wax geli kara wax ka soo bixi kara male Venezuela anay ii xiran tahay marka shiinuhuna wuxuu u diraa leeyahay hadda warkan sharqul awsad ay qorayso maraakiib dagaal si ay u badbaadsadaan maraakiibtooda shidaalka qaada dhanka kale Trumpna bogiisa True Social ka leeyahay oo uu wax ku soo qoro wuxuu ku qoray in mas'uuliyiinta ay cayriyaan Venezuela jawaasiisu yiri oo ka socota Ruushka iyo Shiinaha iyo Cuba iyo Iran oo dalkaas dhooban waa inay ka baxaan sababtu maxay tahay wuxuu ka baqayaa gudaha marka ay yimaadaan shirkadihiisa iyo ciidamadiisa dhulka iyo in halka lagu qarramsado meeshan shidaal in la qaataa la rabaa asaguna wuxuu rabaa hanjabaad iyo boota iyo cirkaan ka duqeynaa shidaalka halaysi inuu meesha ka yiraahdo waxayna uga digayaan xisbiga dimuqraadiga Kongareeska Mareykanka dood arinta ka furan waxay uga digayaan inuu lugaha dhiiqa kala la galo ninkan hadduu Afghanistan laga soo baxay ciidan Mareykan uu ku daaheen Iraq meel kasta ku soo baaba'nay haddana inaa lugta ciidanka u galis marka sheekadan sidee marka ku shaqay kartaa waa laga sugayaa marka halkaas ay maraysaa sheekada Venezuela wararkii ugu dambeeyay kulay xiisada maraakiibta nuclear-ka ee la isu qaatay ayaa ugu muhiimsan iyaduna waxay ka soo kordhaa barnaamijka iyaga dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa qaybta labaad waxaan galaynaa arrimaha Yemen xaaladeedu way kululaatay nimankii si fiican looga adkaaday Imaaraadka ee gooni u goosadka ahaa Yemen inay jaraan rabay waa la garaacay حتى وحلا قبصدي ماليه أي كسرناين عضن مالا كمدا إيربوتك مال مدحتوية ده وحيودن عضن على السلقلي حتى مجالدي وكسر جدي عيدروس الزبيدي أي إسبهاي شيء السعودي والدقي مرة حدا وقاعدين يجوا رحية هل كان ماشى هبك يوحى وكوكيت صدي نكي مركب ولا لا هي ملاحظة وها كوحلاس وحلا عيدروس الزبيدي hadda marka warbaahinta Sacuudiga gaar ahaan al-Arabiya waxay qoraysaa 3 meelood ayuu ku maqan yahay ninkan meel waa magaalada Cadan oo ku dhuumanayo 2 labo waa magaalo kale oo isagu ka soo jeedo magaaladii uu ku dhashay Abuuraley ayuu ku dhoomeesha la duqeeyay 3 inuu Soomaaliya soo aaday dhanka Somaliland oo soo baxsaday inuu cadan tagay doon ka soo raacay kadibna uu soo cararay Somaliland maadaama Imaaraad uu dhulka atooro ka yahay iyo filimkii la isla waday iyo wixii gooni goosadka nimankaas uu aaday leeyihiin haddaba marka aanu tuso ciwaanka telefishinka al-Arabiya arika uu ka qoray markii uu cararay habeenkii 3 meelood ayaa loo malaynayaa inuu u baxsaday Aydruus az-Zubaydi ninka la yiraahdo 3 meelood oo uu u baxsaday ayaa waxa la sheegay inay markaa ka mid tahay deegaankii isagu uu ka soo jeeday haddaba waxa la sheegay qaraxyo waaweyn in laga maqlay meel hubka uu ku jiray oo ay lahaayeen kooxdan STC ee Imaaraadka waxa la yiraahdaa magaaladaasi Daalic ayaa la yiraahdaa waa magaalada uu ka soo jeedo loona malaynayo ninka inuu galay oo uu markaa ku baxso isleeyahay halkaas waana la duqeeyaa la leeyahay waxa la sheegay cadan gudaheeda iyo Somaliland 3 meel in ninka laga raadinayo oo markaa la daba socdo way ninka markaa waa la raadinaya xeer ilaalinta iyo wixii oo dhan nin gooni oo goosada waa la bursanaya ciidankiisa nagta laga saaray marka hawshaas waa iyaduna halkaas ay baraysaa qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa Netanyahu oo markii uu ka soo laabtay Florida dib u soo cusboonaysiiyay cabsida Israa'iil ay ka qabto xuduudaha ku hareeraysan in Netanyahu ahaa ayaa cabsi iska soo jaray annagu waxaan ka baqaynaa niman Xuuti leeyahay waxaan kale ugu hareeraysan xuduudaha Masartaan iyo Urdun iyo Suuriya iyo waxaan nagu wareegsan wax dhiban nagu ma hayaan waxaan ka baqaynaa niman Xuuti leeyahay nimanka Xuutiga leeyahay inay meelahan Lubnaan iyo Suuriya iyo meelahan inta soo degaan inay Iiraan meelaha keento kadibna ay xuduudeena soo jabsadaan nimankan halaagi doon nimankaas waa ay leeyahay marka cabsida khawfka nimankan cirku maraya lagu leeyahay war Xuuti meesha kama dhawa war Xuuti ma joogo Xuuti Yemen u jira maya intuu ima kara marka sirdoonkeenu waxay hayaan xog ku saabsan Iiraan qarash kasta inay ku bixinayso Xuuti inay inta keento
oo xuduudahan mid uu naga soo galo hadduu soo galana niman jeesana maahan ile yamaniinta abu yaman la yiraahdaa haddaba markaan tusoo jireedda la yiraahdo ra'yul yawm waxay leedahay waxaa sii kordhaya walaaca ballaaran ee Israa'iil ay qabto Netanyahu ayaa markii uu ka soo laabtay Florida walaacaas isaguna muujiyay xuufiyiintu in markaa ay soo diri doonaan ciidamo lugta ah oo xuduudaha ka soo gudbaya si ay u fuliyaan weeraro إسرائيل وعبسانيسا وليبا وحا عوان كاللوغا ديغي قلق بالغ لير معناها ولاع وين او كورسو او سرع ايي قبتا سيغنا لا اشدان هل مرة الذي كحلو لنا إسليه برقاسا انتي قزاء اي جوغين حماس سمايان وح كدران اي نما كافو سمايان كران امسي nimanka xuutiga waa ka baqeen marka sheekadu halkaas ay maraysaa wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa arinta Venezuela iyo maraakiibtan la isku qaatay xaalkooda halka uu ku dhamaado waan idin soo warin doonaa la gareeyo shargareey fakarkiina dhiibta inta aan markala kulmayno asxaabay nabadgelyo